السلام عليكم ورحمة الله. عد مجرى عد ما الله يمغلا عد مجرى بل إيسو قرى والو مغلا عد واجرى إيو عد مجرى إيسو قرى شعبك الصومالي لما الله يمغلا يا عد مجرى ميسو عد مجرى هدا إما قشان وحيسو قرطان عد واجرى haddaad in maqlayna waxa soo qortaan cod ma jiro ma lagu maqlo bal ii soo qora sabuurada ku soo qora codkaaga waa maqlaynaa iyo cod ma jiro way maqashaan Soomaa waayay raaliga ahaada qiyaastii hal saac ama ka badan baan hadlayay haddaan ka baxay marka ay warkaagii dhageysana warkaagii dhageysan marka ayra wuxuu ii soo qoray meesha codba kuma jiro commentigiina wuxuu sheegayaa cod ma leh hadda waa lay maqlaa waa mahadsantihiin waan iska fiiriyey markaan soo galiyay laakiin meel baa laga yaabaa inaan haddana taabtay baa dhici karta aad iyo aad baa u mahadsantihiin wixii aan ka hadlaan ku soo celin السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعرب عاو إن كه الله شعبك الصومالي يدو مدحلات كمدحوينها الصومالية ما الله بشر وسدي سنة بكوفي عن inaan ka dhigano mise hal mudaxilaad oo 4 sano ah oo nagu socotay ilaa Djibouti markii lagu soo doortay Cabdulqaadir Salaad Xasan 2000 oo 22 sano qolada la yiraahdo beesha caalamka ama beesha lixaad shisheeyaha oo wada xalan noo fadhiya ay dalka ayuu ku sharciyeen rabitaankooda oo 4 sano inaan laga badan oo 8 sano isku xigta madaxweyne uu Soomaaliya uu hal qof ka noqonin ma sidaas fiican mise dalkeena maadaama uu burburay 90koodii waxa dal maslaxad ugu jirtaa inuu dalku 8 sano isku xigta madaxweyne inuu fadhiyo qodobkaas waa qodob waxaan ka soo horjeediyay xildhibaanada hadda doorashadan doortay Xasan Maxamuud doorashada 2026 markii la gaaro waa inay doortaan qof dalka dan ugu jirto qofka inta tartamaysa ugu fiicnaantaas oo lagu cabirayo cabirkeedu yahay qofka danta dalka Soomaaliya danta dalka Soomaaliya qof ka shaqeynaya hadalkeena waxa lagu amaantay aayadan quraanka qaala taala قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون آية تفسير كد وحوي إلى وحوليه هي مصنا وحفي عني وحن مصنا ولو أعجبك هكياب قليو كثرة بنانتا الخبيث كم بدن oo kan xun ah inuu shaygu xumaa u badan yahay adigu ha ku cajab geliso laakiin shay fiican iyo shay xun ma sina ilaahay agtiis kuma sina maxaa ku xiga markaa fattaqullaha yaa ulil albaabi la'allakum tuflixuun ba ilaahay ka baqa dadka caqliga lahow hadaa saa yeeshaana waad liibaanaysaan
oo liibaantiinii adduunya tii aakhira waxay ku jirtaa ilaahay inaad ka baqdaan. aayadda quraanka ah waxaan ku cabiraynaa markay isku soo hareen xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo xildhibaanadii shacabka Soomaaliya soo doortay oo 329 ahaa labadan inay midkood dooraan oo dalka u dooraan oo diinta u dooraan oo dadka u dooraan halka markay marayso ayaan aayadaas quraankan ku cabiraynaa. intaas waa hordhici hanoo joogto waxaan gelaynaa marka oo u soo noqonaynaa xildhibaanada waxaan ku hormaraynaa annaga shacabkeena Soomaaliyeed balorta aan caawa aan ka doodno aan miis ka saarno aan meel isla dhigno dalkeeni wuxuu burburay 91dii ma waxaa dan noogu jirtaa 8 sano isku xigta qofkii madaxweyne noqda inuu 8 sano isku xigta kursiga fadhiyo mise waxaa noo fiican oo dalkeena u fiican 4 sano qofkii oon weli expertise noqon oo labadii sano oo horena la daala dhacayay dhibaatada iyo problemka dalka haysta inuu ururiyo oo horta bal fahmo oo darso labadii sano oo dambana dhibaatada say u kala weyn tahay si u xalin lahaa inuu ku mashquulo asagii oo marka wax qabadkii meeshii ugu fiicneed ama meel la taaban karo aan gaarsiin ee bilow ah ay 4 sano dhamaanaysaa. waxaa halkaas markaa marayna aad ula doodi kartaa Cabdirashiid oo Mareykanka iyo Washington ba 4 sano ayaa la isku kala bedelaa. London taad ka soo hadlayso UK Ingiriisku 4 sanaba barnaamijyada qaarkood waa la isku bedelaa. maxaa dhib ku jira? waa yahay ana warka iida marka halka ku jooji waxaan markaa kugu jawaabin Mareykanka iyo Washington waa wadan nabad ah. Soomaaliyana 32 sano ayuu burbursan yahay 91kii loo kala tagay way. London iyo UK iyo Ingiriisku iyo Great Britain waa wadan nabad ah. wadan sida Soomaaliya 92dii la diray la kala tagay waxba burbureen ma ahan. London iyo Washington waa wado xafiiskoodii iyo armaajooyinkoodii iyo waraaqahoodii iyo sharciga ay degsadeen iyo nidaamkoodii iyo dastuurkoodii waxa iyagu ay maamulka dawladda u yaqaaneen cirbad kama maqan cirbad waa u dhameystiran tahay. madaxweynaha unbaa madaxweyne cusub lagu bedelin shaqaalahana shaqaale cusub lagu bedelin waa inta kaliya. laakiin Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu imaanayaa xafiis maran oo eber ah markaasuu bilaabaya markaas shaqo kow u noqonaysa ilaa wadankii waa burbursan yahay. madaxweyne marka xafiis maran iyo dad shaqo barad ah oo cusub iyo dhibaatooyin ciidan ka badan oo 32 sano soo isdul saarnaa loo dhiibay 4 sano way yarta. anuu marka waxaan qabaa haddaan Cabdirashiid Sheekh Maxamed iyo dad shacab Soomaaliyeed oo kale waxay ugu raacsan yihiin oo ayuu aaminsan yihiin wadanka intuu soo kabanayo oo wadan sidaas Mareykan iyo Ingiriiska oo kale wadan nabadgelyo ah oo maamulkii iyo xafiisi dhisan yihiin wax walba ay diyaar yihiin inta la gaarayo oo buburka laga soo kabanayo in 8 sano laga dhigo waqtiga madaxweynaha uu xilka haynaya 8 sano in laga dhigo. هذا حشي محمود سوكو فرديو شيء طبعا لحية طبعا تضيو طبعا سدح بري صوماها سيدات بري سيدات سنة أو سكحته كونتينيوس إن لوغا ديغو لكن شروط لوغو حيرو إنو دينتا يدالك يدادك وشاقين يشاقا في عن أو تيفر ما تشكافي عن أما تيفر ما تلمي ده إنو قبطو لكن أفر سنة بركي وهوري تيو قبطي أو كالي هدو قبطو إنان لوغو دارين أفر كالي لكن دوش بدول حسن شيق أو شقادو فرماتش قبطي ميد كافي عن أو ميد لمي ده قبطو أنيقا يوحي إيقو فكرة أو صومالي وعرنتا اللوكو منتهي دالك إن 8 سنة لوغو سو روغو إن شعبك الصومالي دالك أي قواميان بارلمان كان لوغو دارو إن 8 سنة أو حرة ومدحوينو كرسي فاديو
waayahay arrintaa iyada ah yaan waxaan u keenaynaa aayad qur'aan ah dad kalena waan u keenaynaa oo aayadda qur'aanka ah dadkay ka hadlaysa ah qaala tacaala وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون آية وحان وصعدا قيبت إلهي وكغاها الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون dadka aqoonta leh weydiiya haddaadina adinku xaqoonin waxaad weydiisaan cabdilqaadir salaad xasan sooma noola soo masar kuma noola soo madaxweynihii 2000 Jabuuti lagu doortay maaha weydiiya wixii yaqaan waxaad dhahdaa waxaad weydiisaan markii lagu soo doortay 8 sano in lagaaga dhigo iyo 4 sano in lagaaga dhigo keeba wadankii Soomaaliya oo burburay 91 adna 2000 lagu dhiibay ma 4 sano ku fiicnayd mise waxay ku fiicnay 8 sano xiriir waxaad weydiisaan Cabdullaahi Yusuf wadinta Allah u naxariisto dadkii la shaqeyn jiray oo yaqaanay Cabdullaahi Yusuf ma waxa la qumanayd markuu noolaa oo madaxweynaha Soomaaliya ahayd inuu 4 sano ku gaabsado mise 8 sano inuu shaqada meel la taaban kara gaarsiiyay maadaama dalkii burburay ayaa la qumanayd Cabdullaahi Yusuf Shariif baa ku xigay waa nool yahay Shariif weydiiye wixii yaqaanow 4 sano miyaa kula qumanay mise 8 sano in lagaaga dhigo oo wixii ka qaldamay iyo wixii aad ka gaari weyday dhamaystirto ayaa wadanku ku fiicnaa xasan shii maxamuud kan laftigiisa weydiiye markii farmaajo uu ku bedelayay ma 4 sano in lagu daro ayaa shaqada iyo xafiiska yu ku sheegayay mise 8 sano laga dhigo ayaa kula qumanay mise 4 sano kula qumanay farmaajo hadda xilka 15 laga wareegay ma 8 sano ayaa la quman in looga dhigo mise 4 sano asagoo waliba 1 sano ku darsay iyo bilo 5 sano joogta kula quman asagana wixii yaqaan weydiiye waxaad kaloo weydiisaan odaygii u tartami jiray Jabuuti la tartamay Cabdilqaadir Salaad Xasan oo la oran jiray cadow Cabdullaahi Yusuf kula tartamay Imbagati iyo Kenya 2004 haddana xawr inuu joogo aan malaynayo safaaradda uu ka shaqeyn jiray farmaajo safiirka ka ahaa markaa ka horna wasaaradda maaliyadda wasiir ka ahaa cadow odayga macruufka oo la yaqaan oo wayirka xamar la joogo weydiiye waxa dhahdaan cadow wadanka maadaama uu 90 burburay 2000 markii Cabdilqaadir soo doortay ilaa iyo hadeer taano shalay 15 bisha la doortay Xashi Maxamuud wadanka ma 8 sano ayaad ku talinaysaa mise 4 sano inuusan qofna ku darsan hal saac iyo hal maalin iyo hal asbuuc baa kula quman bal inta weydiiye marka waxaad kaloo weydiisaan barnaamijka Soomaaliya Maxamed Cabdi Yusuf oo hadda xamar jooga oo dawladda Maxamed Sabaray dhowr wasiir ka soo noqday SWS ahaa dadkii carruurtii taageersanayd wadanka hadda barnaamijka intuu burbursana ka noqday xamar in la jooga ninka weydiiye waxa dhahdaan wadanka ma 8 sano ku quman oo ku fiican si wadanka burburka looga saaro mise 4 sano ayaa ku fiican waxaad weydiisaan raggii golaha sare ahaa oo ahaa أحمد سليمان دفله أو بلشم كنول إيوه نينكي لو أورنجري محمود قلي يوسف أو كنول ودن كلي يراهدو سويسرلاند لبدا أضي أو قولي سرعها أو ودن ككويلة تسنسو حكومي ودن كي سغاشي كودي بربوري هذا ديبا لو ديسايايا waxaad ku talinaysaa wadanka 8 sano in laga dhigo madaxweynaha mise waxa ku talinaysaa in 4 sano laga dhigo waxaad weydiisaan odaygii golaha sare ahaa oo Sacuudiga markii ugu dambeysay 2008 aan kula kulmay Cusmaan Maxamed Jaale odagaas Sacuudiga ugu dambeysay weydiiye
waxaa dhahdaan cismaan maxamed jeelow ma waxaa kula quman dalka Soomaaliya maadaama iskaashkoodu burburay mushkiladiisina ay faray ka badatay in kursiga madaxweynaha uu 4 sano ahaado mise in 8 sano laga dhigo oo baarlamaanku ay hadda ay isku raacaan in 8 sano kursiga uu qofku uu joogo waxa ay soo baxi doona markaas inay 8 sano ku quman tahay iyo in 4 sano ku quman tahay laakiin aniga iyo wixii igu fikira waxa nala quman 8 sano waliba hadii intii hadda ka horeysay ayna dhaaftay xasan kaan 15kii qabsaday haduu qof fiican oo toosan noqdo 8 sano ha looga dhigo haduu xasan kaan naqaanay iyo honna waa honiisi noqdana 4 sano markuu dhamaysa laga qaado ama asagoo 4 sano gaarinba inta mushkilada kale meesha laga cayriyo aniga iyo wixii igu fikir oo Soomaaliya fikirkaasan qabnaa waayahay qaar kale waxay qabaan inaan 4 sano hal saac lagu darin hal asbuuc lagu darin hal bil lagu darin waayahay qolada qabta 4 sano inaan madaxweyne Soomaaliya aan saacad lagu darin waa laba qaybood qaybta ugu horeysa waa shisheeye waa cadowga shisheeyaha ah oo xal noo degan oo ajaanibta oo ama 37 wadan ah ama 193 wadan ah ama se ah 220 ayaga maslaxad gaar ugu jirta oo waxay rabaan 4 sano madaxweynihii oo barbarad ah oo dhibaatadii dalka burburay la dala dhacaya oo expertise noqon oo wali andun iyo cirbad isgelin in meesha ay ka tuuraan bay rabaan 4 sano barbaradka yana waraaq ay ka feermaystaan nimankaas waxay ka shaqeeyaan madaxweynaha maalinka kursiga fariisto illa ma maalintu ka dogo inay faylaha qabtaan inay xagasha kaga istaagaan inay mushkiladii problemo ku furaan inay Soomaalida ku diraan inay kuwa caloos u shaqaysiyaala ay urursadaan oo kireystaan qoladaas waa shisheeye qolada labaad waa Soomaali shisheeyaas u shaqeeya oo gacan yar u ah oo dabaqoodhi u ah oo jawaasiis u ah oo cadaqaatiyaal oo daba dhilfiyaal ah oo 4 sano ay rabaan ajaanibtu ama xallaha noo fadhiyeen ama caasimaha laga soo diray ha ku maqnaadeene dadkaas aan Soomaalida ahayn oo ajaanibta ah oo shisheeye beesha lixaad Soomaal u bixisay ayay gacan yar u yihiin waxa aad marka maqlaysaan inta badan ku haya 4 sano uu dhaafin waa qolo kuwaas gacan yar u ah way ayaga laba u sii kala jabi qolo waa kuwa idin sheegay oo waa dadka gacan yar u hoo cadaqaatiyaal oo jawaasiis oo daba dhilifa qaarna waa dadan maamul waxba ka aqoonin oo daacad iska ah laakiin cilmi iyo aqli ba inta ka ah macna waxaan laga hadlayo wadan burburay 4 sano inay ku filan tahay iyo 8 sano ku filan tahay iyo kii ku fiican dad cilmi ahaan iyo aqli ahaan u darsi kara oo garan kara maaha saasay ayaguna 4 sano u leeyihiin waayahay waxaan tagaynaa doorashadu markay socotay shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada way la hadleen madaxweynaha ay dooranayaan astaan iyo calaamad bay u sheegeen waxaan ugu hormareynaa culimada Sheekh Maxamuud Shiblo kale wuxuu yiri waxaad ila hadlayaa xildhibaanow waxaad ila hadlayay Sheekh Maxamuud Shible wuxuu yiri waxa aniga idin soo jeedinayaa dad xildhibaano tihiin inaad dalka u doortaan qof dalka u fiican oo dalka maslaxadiisa ka shaqeynaya qofka u aragtaa inta tartamaysa ugu fiican yahay doorta ayuu yiri Sheekh Maxamuud Shible Sheekh Maxamed Dirir ayaa isna Hargeysa ka hadlay wuxuu yiri xildhibaanada Soomaaliya oo Muqdisho jooga ayaan la hadlahayaa waana la talinayaa waxaan kula talinayaa hadaan Sheekh Maxamed Dirir inaad doorataan dalka Soomaaliya qofka u fiican iyo inta tartamayso qofka ugu fiican labadaas sheekh halkaas fikirkoodii ku dhacay waxa hadlay sheekh loo yiraahdo sheekh jir
وعليها الشيخ جنرال جير وشيخ وانا جنرال مقعي سنة جير بو ماشا كوسو قرأي مركو هاللي وحاو قرنايد شيخ جنرال جير wuxuu yiri farmaajo in la soo celiyo maadaama 4 sano wadanka u xukumay 4 kale ha loogu daro oo xilbaanow farmaajo doorta si ninkaasu wadankii u sii dhameystiro oo meel fiican u gaarsiiyo ninkaas marka la soo celiyo sheekh general jirna halkaas asna fikirkiisa halkaas ku dhacay waxa la sheey maxamed dirir waxa leeyahay sorry waxaa lay sheekh maxamed idriis wuxuu joogaa saan malaynaya turkiga ayuu degan yahay Columbus Ohio American uu ka soo guuray wuxuu yiri ilaa farmaajo meesha waa inuu ka tagaa wuuna fashilmay waa in madaxweyne cusub la doortaa farmaajo maamulkiisu qabiilooyinkii farmaajo waa heshiisiin waayay maamulkiisii wax badan buu ka gaabiyey sidaas awgeed waa inuu xil ka degaa waa in madaxweyne cusub la doortaa xildhibaano ra'yigaasna waxaa iska leh sheekh maxamed idriis oo turkiga inuu joogo ama degan yahay saas markii ugu dambeysay aha xaalkiisu anigu maxaan qabaa haddaanay cabdirashiid cali sheekh maxamed anigu waxaan qabaa Soomaaliya maadaama ay burburtay 2000 Cabdulqaasim markii la doortay ilaa saacadan dalku inuu burburkii ka soo kabashadiisii inuu wali ku jiro madaxweynahan 4 sano inay ku yar tahay laakiin 8 sano inuu qaban karo hadduu qof wax fiican qaban yahay wax fiican inuu qabto qof rab haday daacad ka tahay oo dadaalaya inuu wax qaban karo anu saasan qaba waxaana qabay farmaajo in la soo celiyo maadaama shaqadii uu ku dhex jiray wax fiican uu qabtay inuu sii dhameystiro oo 8 sano markay u dhamaato ama 2 xilli markay u dhamaato inuu madaxweynaha uu ku wareejinayo meel fiican wadankii oo gaaray in lagu wareejiyo oo farmaajo wareejiyo ninka kale la wareego waxaan marka isku fikirnahay aniga sheekh general jir ninkaasaan isku ra'yi dhownahay shacabka Soomaaliyeedna waxay kala qabaan afarta sheekh ra'yigooda ayay kala qabaan qaabka doorashada iyo qofka lagu dooranayo shuruudda lagu dooranayo iyo qofka xafiiska hayay iyo waxay ku kala duwan yihiin qofka cusub oo xafiiska soo maamulin iyo waqtiga wadanku meeshu marayo intaas oo ra'yi ayay qabaan qaarkii kale oo aaminsanaa inuu farmaajo uu fashilmay waxna qaban waayay sheekh maxamed idriis oo kale iyo wixii ku fikira iyo qola kale oo mucaarad ahaa oo sicdani uu hadlayay oo aaminsanaa ilaa farmaajo inuu kursiga ka dago iyagu ku fikir maaha dadkii hore oo aaminsanaa in wadanka qofka dalka u fiican loo dooro sida sheekh maxamuud shible iyo sheekh maxamed dir oo kale oo hargeysa ka hadlayay mana ahan sida sheekh general jir oo kale iyo anigan cabdirashiid cali sheekh maxamed oo farmaajo in la soo celiyo soo shaqada u dhameystiro aaminsan ma aha sheekh maxamed idriis wuxuu ku fikira farmaajo inuu qabiilooyinka heshiisiin waayay shaqooyin badan ka gaabiyay
ilaa uu ila xil ka degana ku fikri maaha qolada mucaaradka ah oo dani u hadlayay danina ka mid ahaa markuu garowe joogana u lahaa anigu waxaan u tartamayaa xamar madaxweynenimo ujeeddo aan ka leeyahay madaxweyne in xamar ka noqdana maahan wax kale farmaajo un baa rabaa kursiga madaxweyne inaan ka dejiyo wax alla wixii arrintaas igu raacsan iyo wax alla wixii ka shaqaynaya in maxamed cabdullaahi farmaajo uu kursiga madaxweynaha ku soo noqonin oo 8 sano xiriir dalka uu samaamulin ayaa anu kala shaqaynayaa buuri Siciidani waa yahay halka su'aal baan ka dhigaynaa Siciidani marka iyo mucaaradka ma dalka Soomaaliya ayay marka u danaynayaan markay leeyihiin farmaajo ilaa kursiga waa in laga tuuraa mise waxay u danaynayaan shisheeyihii aan idin sheegay oo xalna deganaa oo beesh la Soomaaliya u bixisay oo aaminsan 4 sano inuusan madaxweynaha Soomaaliya dhaafin oo ayaga maslaxadooda halka ka dhex arkay hadba qofkii cusub inay ka faa'iideystaan way arnimo laantiisa kana cararaya qofka expertise-ka oo iska celinaya oo dhahaya wadankanaga waxaan aad samaynaysaa dhibaato ku yahay naga jooga marka qaladkooda in la iska qabto oo la iska celiyo diidan yihiin marka waxay rabaan qof cusub oo indha barar ah oo iska harowsadaan oo waraqa cidla oo maran ka feermaystaan sidaasay 4 sano ilaa 2000 u keensadeen ayagana keensaday qolada marka su'aasha ay idin weydiiyay araab idinkaga hormarin jawaabta Siciidani iyo mucaaradka waxaan u arkaa inay gacan yaro u yihiin wakiil u yihiin u hadlayaan speakers u yihiin nimanka xalna fadhiyo beesha lixaad oo dalkan horan u burburiyay haddana inay gumeystaan xalna u fadhiya kuwaasay shaqaale u yihiin marka Siciidani waa dabaqoodi waa jaajuus waa waxa la yiraahdo daba dhilif waa caad qaataway sidaas uu lahaa farmaajo ilaa inaan kursiga ka qaado ayaan ka shaqaynaya dan kale anu madaxweyne kamali haddana waxay sheegayaan Facebook iyo YouTube iyo baraha bulshadu inuu u fadhiyo xamar in asaga barnaamij u ka dhiga Xasan Maxamuud ama se qof uu keenay oo asagu u keenay Xasan Maxamuud in barnaamij looga dhigo waa yahay shacabka Soomaaliyeed Siciidani anu cirbad uma dhiibteen cirbad ii qabo cirbadan ii si hay oo wakiil iga noqon ma dhahan nin Soomaaliya madaxweyne ka noqon karo mas'uuliyadda qaadi kara Soomaaliya uma arka anu Siciidani nin barnaamij Soomaaliya noqon karo oo xilka qaadi karo ka soo bixi karo uma arko nin inta la tixgeliyo qof uu keenay laga aqbalo oo loo magacaabana barnaamijna anu uma arko cabirka lagu cabiro marka Siciidani wuxuu yahay iyo mas'uuliyadda waxaad ku cabiraysaa Puntland oo 2 sano iyo bar uu ka ahaa gobernatore isagu qarnaya wuxuu u dhashay iyo Boosaaso waana Cismaan Maxamuud buu majarteen ka yahay xamar baan ku dhashay buu dhahaa xamar baa sheegaysa London iyo Washington ku dhashay duu rabo laakiin asalkiisa iyo qabiilkiisa Cismaan Maxamuud baa dhahaa Soomaaliya iyo bari waxay ka degaan qarna iyo Boosaaso muxuu ka sameeyay imise qof buu ku dilay gaal kacyo imisu hadda ku dilay ugu dambeyntii hadeertaan garowe imisu qof buu ku dilay markii la tartamay oo doorasho reer Puntland u tartameen asadiyana soo kaba helin doorashadii ufayn iyo qarnaya ka dhacday ayl hadduu madaxweyne Soomaaliya intuu noqdo oo shaqo qaban karo reer Puntland doorashadii ka dhacday ufayn iyo ayl iyo qarno asay ugu shubay lahaayeen iyo xisbigiisa ka laakiin uguma shubeen Siciid Asadiyan uguma shubeen laakiin waxa uu xaqiiqoday inuu san kan qayr mas'uul inuu yahay Siciidani aan waxar jaban iyo boojaal jaban iyo digaag jaban in lagu aamini karin saasay Asadiyan u doorteen ninkii marka tolkiis iyo reer Puntland iska soo cayriyeen soona habaareen in kaarta soo daba dhigeen xamar iyo Soomaaliya muxuu ku soo kordhinaya oo shar ka ahayn madaxweynihii waaba waayeyba prime ministerkii asaga haddii laga dhigo waxaan shar ahayn soo korin maayo mid asagu keenay oo la taliyo u yahayna waxaan shar ahayn soo kordhin maayo sidaas awgeed ayaa waxaa la rabaa marka la kala dooranayo 2 qof sida Xasan Maxamuud iyo Farmaajo
in loo daneeyo dalka ee loo danaynin koox la yiraahdo damul jadiid ama loo danaynin qof la yiraahdo siciidani ama loo danaynin nimanka xan la fadhiya oo siciidani wakiil ka yahay oo jaajuuska u yahay oo daba qoodhiga u yahay oo daba dhilifka u yahay inaan loo danaynin haddii marka intaas oo fikir oo iska soo horjeeda aan u qaybsannahay waxaa aniga ila quman kow sida Sheekh Maxamuud Shibley ay ku taliyeen Sheekh Maxamed Dirir ama Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo Hargeysa jooga oo ah xildhibaano markaad wax dooranaysaan dalka maslaxadiisa qofka ka shaqaynaya doorta dadka isku soo haro oo madaxweyne u tartamayana qofka ugu fiican oo isleedin waa ugu fiican yihiin doorta warkaas waa sax Sheekh General Jir ya aniga warkanagii asaguna waa sax waxaan u aragnaa soo noqoshada farmaajo maadaama uu xilkii uu hayay oo expert shaqadii ku yahay meelna ay marayso inuu wadankiina marxalad adag marayo inuu mar kale soo noqdo shaqada ayaa noola muuqatay inay saa ku fiican tahay Sheekh Maxamed Idriis oo marka dhaliilay qabiilooyinkii inuu heshiisiin waayay wax badan uu qaban karna ka gaabiyay ku dhaliilay isagaad weydiinaysaan dhaliisha iyada ah iyo wixii wanaag ahaa oo farmaajo qabtay 5 sano iyo bilihii uu joogay marka isbardhig la sameeyo ma waxa uu qabtay oo dalka u qabtay farmaajo ayaa badan mise wixii farmaajo uu qalday iyo mistake uu galay 5 sano iyo ayaa badan ma in lagu abaal mariyo farmaajo inuu 4 sano kala dalka sii maamulo ayaa sax iyo cadaaladda iyo xaqa u dhaweyd iyo duruufta wadanku macna uu ku sugan yahay Soomaaliya 2022 mise qabiilooyinkiina waa heshiisiin way shaqooyin kalena uu ka gaabiyay ee xafiiska laga qaado Sheekh Maxamed Idriis qabo ayaa sax taas waxaad kala doodaysaan marka Sheekh Maxamed Idriis asaga qaba turkuna joogan wixii yaqaan asaga kala hadlo maxay soo haray dani iyo qolada mucaaradka ah oo u shaqeeya nimanka xan la fadhiyo shayaha oo cadawga Soomaaliyeed oo saddex wadan ka yimid ama 193 wadan ka yimid ama 200 iyo dhowr wadan ka yimid waxaan qabaa iyaga iyo cadawga xalna noo fadhiya oo shayaha isku si in la iska celiyo shacabka Soomaaliyeed in meel adag laga istaago nimankaasu diintay burburinayaan dalkay burburinayaan dadkii iyo shacabkii Soomaaliyeedna waa burburinayaan wax maslaxad ah oo adduun iyo wax maslaxad aakhirana nooga maqna calooshoodii hungurigooday ku maqan yihiin intaasna waxaan kaga tagay qodobkii koowaad waxaan bilaabaynaa markaan qodobkii labaad oo ahaa xildhibaanada hadda doortay Xasan Maxamuud farmaajada ka tagay markii laba isku soo hareen iyo xildhibaanada 26 dooran doona madaxweynaha Soomaaliya oo soo socda aan aayadii mar kale ugu celiyo قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون xildhibaano ilaahay wuxuu ku yiri masina waxa fiican iyo waxa xun adiga haba ku cajab geliyo badnaanshaha shayga xun u badan yahay oo shayga fiican uu ka badan yahay waa yahay markii ay doorashadu mareysay wareegii saddexaad la bilaabay anigu waan soo galay waana hadlay Xasan Maxamuudna wuxuu marayay tirada 110
farmaajona wuxuu marayey 83. hadda ma lay maqlaa shacabka Soomaaliyeed mise wuu go'ay codkaygii oo ima maqashaan bal ii soo qora ii cusboonaysiiya mar kale waan ku maqalnaa soo qora ama kuma maqalna soo qora intaanan faahfaahintan hadda aan idiin bilaabin qodobkan may maqashaan mise ay maqashaan oo cod ma jiro ha iyo maya ii soo qora waxaan rabaa nimanka xildhibaanada ah doorashada soo socota inaan u caddeeyo meeshay aadi lahaayeen midii hadda ay doorteenna waxay qalad galeen aan farta ka saaro marka soo qora cod ma jiraa mise codkayga ma maqlaysaan maxaa faraha idinka haysta ood ii dhegaysanaysaan ood igu soo jawaabayn hadda may maqashaan mise ima maqashaan oo cod ma jiro mise cod waa jira way maqashaan bal ii soo jawaaba soo qora waa ku maqalnaa iyo ma ku maqalno qaybtii labaad baan hadalka u gudbahayaa doorashada soo socota 26 ayaan rabaa xildhibaanada inaan farta ugu fiiqo qaladkay hadda galeen doorashada hadda 22na inaan caddeeyaan rabaa oo wejiga ka saara qaladkay galeen marka soo qora waan ku maqalnaa iyo codkaagii wuu naga damay oo kuma maqalna soo qora waa yahay markay maraysay 110 xashi maxamuud uu lahaa farmaajana 83 uu lahaa xildhibaanada 214 oo dooratay xasan sheekh maxamuud waxay u arkeen xashi maxamuud inuu horeeyo ayaguna meeshay waxay u yimaadeen kuraas iyo lacag laakiin aakharna dan kama leh ilaahna dan kama leh dalka Soomaaliya dan kama leh diinta islaamka dan kama leh shacabka Soomaaliya dan kama leh waxay fiirsadeen kursigooda iyo lacagtooda saasay xasan sheekh maxamuud ku doorteen qolada marka waxaan leeyahay aayadii quraanka oo Ilaahay idinku yiri shayga fiican iyo shayga xun ma sinna hadduu rabo shayga xun habato ayagu marka shaygii xumaa oo batay ayay doorteen oo tiradii badnayd oo u muuqatay inuu xasan soo baxayo ayay xoogga saareen shaqadii xasan sheekh maxamuud 4 sano iyo barkuu joogay uu qabtay waxay ahayd shaqo xun bay ahayd shaqo fiican ma ahayn shaqadii farmaajo uu qabtay 5 sano waxay ahayd shaqo fiican shaqadii fiicnayd ayay ka tageen maadaama ay shaqadii fiicnayd oo farmaajo ay heshay 8 cod shaqadii xumayd oo 4 sano 6 bilood oo xasan maxamuud oo 110 maraysa 110 kaas uu ka xildhibaanna badan yahay xasan maxamuud oo ka horeeya farmaajo ayay ku doorteen 214 kaas marka macnaheedu labadii shaqadii fiicnayd oo farmaajo maysan dooran shaqadii xumayd xilligii 4 sano 6 bilood oo xasan maxamuud wadanka madaxweyne ka soo ahaa ayay doorteen waxayna ku doorteen horeynta oo xasan maxamuud ka horeeyo marka ayagu macnaheedu waxa weeye qofkii soo baxa oo guuleysta suu lacagna kuu siiyo kursina kuu siiyo u food weeye marka ilaahoodna kamay biqin aakharoodii qabrigoodana maysa ilaashanin dalkoodiina uma danayn diintii islaamka uma danayn shacabkii Soomaaliyeed uma danayn waxay u danayeen cadowgii Soomaaliyeed oo xalna fadhiyay oo 4 sano maslaxad ugu jirtay oo madaxweyne kasta oo Soomaaliyeed 4 sano dhaafin jideeyay waxay u danayeen dabadhiifyadii iyo dabaqoodhiyadii iyo jawaasiistii ugu horreeyay dani kuwaasay u daneeyeen marka waxaan leeyahay aayadda quraankana waa ku gafeen warkii Ilaahayna waa diideen sixi iyo khaladkii bay doorteen
markii dambe 110 bay iyay tageen 110 ka farmaajo u codaysay ayaan waxaan leeyahay iyaga aakhiradoodiina ilaahood ka baqay aakhiradoodiina camal fiican u hormarsaday qabrigoodiina camal fiican u hormarsaday dalkoodiina u daneeyay diintoodii u daneeyay shacabkii Soomaali u daneeyay cadowgiina gacmaha ka qabtay oo iska celiyay labada qolo marka آيات أنا أقصد وين مركا آيات كلوية تي هرمه من لبعض قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون إلى وحليه صلى الله عليه وسلم محمد كهضي صلى الله عليه وسلم رسولك أنا أصدر سي ونبي محمد كركيسة جارسين ودين الإسلام كإذن سو جارسين أيوه ما هنا كركيسة وحكة لماها معناها واجب كلا صار الملح إنه دين إذن سو جارسيه وأنا جاي أصعد الرسول كيو يهي ووحن أنا وركان إذن شيء أمر كيجا ودين سو جارسيه ومبان أحل ساري والله يعلم ما تبدون واحد موجين إنسان بني آدم كذاتهين قريش تنين محلون ولا مركب قرآن سودك هي بكبلو إلى قيامه أنت القرآن كان أسوقر إني محمد ورسولك وجهه واحد موجين إنسان أو عرب كينا أتكون شيء إنسان أو قعمها أتكقبان إنسان وان لا صعده وان أوجهي ويعلم ما تكتمون واحد قرن إنسان أو قلبه كقرصنا إنسان أنا إله وان أوجه ولا صعده أبو إله جري قلوينكي مرك الله بقولي أفرت دورتي أفرت وانكي دورتي حسي محمود من هنا ودورتي ما واحد نقول دودي كرتان أنا عبد على شيء محمد شعبك الصوماليات حسي محمود ما نقولين ننعصب وها فرماجة ما نقولين ننعصب وها لبضا من كيف عن ما نقولين ويعصباين شقدوا ما كان نقل ميا يقولوا دودي كرتان مايا تاسوا بنتين كم دودي كرتان لا بقول يا أفر طبعا كدورتي حسن شيء محمود إلهي وأجه قلبيين واحد دورتين هذا العي كرسي تهاي سان هذا أنا دين شاقي يهدي كدو وانت هاي إلهي وأجه هاي كوي بقول طبعا كأوفر ماشى دورتي واحد دورتين خير يا شر أيجن إلهي قلبي وأجه واحد يكون فكريا ولا صعده لكن أنا شعبك وحنو موقضة وإنها أنا قرتو يا ظاهرك qoladii farmaasho dooratay oo 110 ka ahaa inay dalka iyo diinta shacabka u daneeyeen cadowgiina ay halbowlaha gooyeen qolada 214 ka oo dooratay Xashi Maxamuudna inay cadowgu u daneeyeen halbowlahana ay gooyeen shacabkii Soomaaliyeed dalkii Soomaaliyeed laf dhabarta ay ka jabiyeen sidaas anaga waxa noo muuqda indhaha anaga hortooda yaala waa saas laakiin Ilaahay waxaad muujiseen wuu yaqaan wuu adduunyo aakhiro wuu ku xisaabin waxa qalbigiina ku jirana oo naga qarinaysana oo labadan u kala doorateena oo kii fiicna uga tagteen kii shaqo fiicna oo shaqada fiican qabtay oo farmaajo uga tagteen kii 4 sano 6 bilood shaqo xun qabtay oo Xashi Maxamuud u doorateen oo dalka markale ugu soo celiseen Ilaahay adduunkana wuu ku xisaabin waana idinka abaal marin aakhirana wuu ku xisaabin wuuna idinka abaal marin waxaan kaloo idin leeyahay doorashada 2026 adinka iyo kuwa idin bedeli doona oo baarlamaanka 12aad adinku baarlamaanka 11aad baatihiin intiina ku jiri doonta oo hadda baarlamaanka 10aad qaar badan oo kamid ah ayaa adinka idin kamid ah baarlamaankiina cusub oo 11aad qaybta baarlamaanka 11aad ku jirta kii 10aadna ku jirtay kii 9aadna ku jirtay kii 8aadna ku jirtay kan 12aad ku jiri doonta markaad kala dooranaysaan laba qof sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo farmaajo oo kale oo labadu madaxweynayaal soo noqday oo nina 4 sano iyo xoogaa madaxweynaha nina 5 sano iyo xoogaa ahaa oo kala garanaysaan waa inaad doorataan kan dalka u fiican tusaale ahaan oo kale Xasan Maxamuud iyo farmaajo markii 15 kala dooranayay dalka iyo diinta dadka waxa u fiicnaa farmaajo shaqada farmaajo qabtay 5 sano iyo xoogaa ayaa ka fiicnay shaqadii 4 sano iyo bar وقبتي وكهريسي فرماجو حسي محمود أديكو مركا شقادة كتصالة قادنايا نمانكو أي قبتين تصالة كدقانايا
say dalka iyo diinta iyo dadka uu kala daacadsan yihiin uu kala howlkarsan yihiin adinkoo ka fiirinaya halkaas waa inaad doorataan qofka danta dalka diinta iyo dadka u shaqaynaya inaadan calooshiinna iyo hungurigiinna shaydaankiinna hawadiinna ibliiskiinna inaadina dabagelin saas hadda u daba gasheen sidaas ayaan idinkula talin waa haddaad rajo ka qabtaan kitaabkii qur-aankaad marteen oo beenta ahaa 214 naas ilaahay inuusan adduunka idinku cadaabin aakharo ilaahay waaba idinka xisaabin doonaa adduunyada intaan aakhiraba la gaarin inaan adduunka ilaahay idinku cinqabin idinku cadaabin kitaabkii aad beenta ku marteen ayadoo ramadaan tahay kadibna farmaajo iyo xashi maxamuud aad kala doorateen inta soo hareen labadaas aad tiraahdeen xashi maxamuud baan dooranay annagoo ah 214 abaalmarinteeda xadgudubkaas aad gasheen iyo cadaalad darradaas annaguna waa joogna waa idin daawanayna ilaahay wuxuu idinku falo aakharana ilaahay baa yaqaan wuxuu idinku abaalmarin oo annaga naga yaqaan waa yahay waxaan u gudbaynaa siciidani iyo mucaaradkii uu yiri siciidani anugu madaxweynaha Soomaaliya markuu garow ka qodbeynayay anugu madaxweynaha Soomaaliya waxaan u doonayaa inaan madaxweynaha Soomaaliya u doonto rabaa xamar waxa igu wacan hal mas'ala kaliya inaan farmaajo xilka ka qaado inaan madaxweyne u tartamo 22 aniga siciidani ah farmaajo inaan xilka ka qaado kaliya baan kala jeedaa dan kaleba kamali waa yahay xilkii horta siciidani waa tartamay laakiin waa waaye farmaajana suu sheegay noqoto uuba ka degayba haddana xashi maxamuud baa waddanka madaxweyne ka ah wuxuuna u ag fadhiyaaba baraha bulshada laga sheegay Facebook YouTube siciidani hadduu yahay in asaga baramtar uu ka dhiga xashi maxamuud ama qof asagu uu keensaday inuu xashi maxamuud uu baramtar uga dhigo waxaan leeyahay marka maslaxadaas gaaban oo qiimaha lahayn cadowtinimadana salka ku haysa cilmi la'aanta sal ku haysa aqli la'aanta iyo aqli yaraan sal ku haysa waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed siciidani iyo mucaaradka waa niman u shaqeeya shisheeyaha cadowga ah oo dalkan burburiyay haddana raba inay gumaystaan khayraadkana dhacaan dadkaana ay laayaan Ethiopia Kenya ku wareejiyaan Soomaaliya aayadan quraanka bal dhageysta siciidani iyo wixii fikirka ku raacsan iyo mucaaradku qaala ta'ala أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إلهي وحو يري آمن مية كنقدين كوي هجر دامده نقرت سميي لولك إنا لقويو آمن مية كيهين أما سي عذاب أغيي ماذو ميل أي سمالينين عذاب أغيي ماذو عذاب وكينو مي آمن كيهين وكو وحي إلهي وأمره إنا سميان ديدي وحي إلهي كرهبي وكنهيين فرع لقالي شيطان يهوي نفسه اسك دبا غلاي سيده سعيدن iyo mucaaradkoodii asagu u hadlayay oo gacan yaraha u ah cadowga Soomaaliyeed oo shayaha ah oo xalal noo fadhiya marka ayadaas quraanka ayaa in ku dul akhrinaya siciidani iyo wixii fikirka la qabo ma ahan siciidani farmaajo inuu shakhsi ahaan uu ula jeedo arrintan uu leeyahay farmaajo xilka inaan dhaafiyo way wuxuu kala jeedaa dalka Soomaaliya 8 sano shaqo toos oo wada socota oo hal madaxweyne qabtay oo dalka meel fiican la gaarsiiyo cadowgana gacmaha laga qabto laga horeeyo dalkuna hore u socdo
waxay naga xadi jireen iyo hagardaamadii iyo dhibaatadii farmaajo uu joojiyena inaysa sii socon ee la joojiyo arrintaasuu diidan yahay wuxuu rabaa danahooda ayaga khaaska ay soomaaliya ka leeyihiin cadowga shisheeyaha inay soomaaliya uga hirgasho shidaalkii iyo uraniumkii iyo gaaskii iyo waxay dan lahaayeen inay xadaan sii dhammaystaan shacabkana gumaadaan dalkan Itoobiya Kenya ku wareejiyaan intaasuu ka shaqaynaya Siciidani iyo wixii fikirkan ku raacsan iyo mucaaradkaba warkaan farmaajo waa carabka ku macaysasho waa qurxin wax ka jira male hadday hadda ay ku kulmaan ama Nairobi ama Addis Ababa ama Carabaha ama Mareykanka ama London was dhunkanayaan farmaajo iyo ninkii leeyahay Siciidani waana sheekaysanayaan marka waa duulaan dalka ku socda ee shacabka Soomaaliyeed laakiin waa laga qarinayaa waxa laga dhigayaa duulaanka inuu farmaajo ku socdo ama qof ku socdo marka duulaanka Siciidani iyo mucaaradku ma ahan farmaajo ma ahan qof kale ma ahan gabar madaxweyne u tartamaysa waa dalka waxay duulaan ku yihiin waana niman gacan yara oo jawaasiisa oo caadaqaatiyada oo dabaqoodhiya oo wakiil Soomaali uga ah oo gacan yara u ah nimanka shayaha oo xalna fadhiya ayada ugu dambaysa oo war kaga baxayo waa dhammaan muslimiinta waa dhammaan Soomaalida waa dhammaan intiina imaqlaysa waa anigan hadlayo Cabdirashiid Cali Maxamed qaala tacaala اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم إلى وحير أغادا إلى هاي عنقابتي سوى مد رنوي إلى هاي عنقابته عنقابه وحي أمرك سديدة وأسوأ أبورتي أما إبليس هنقضه أما بني آدم هنقضه إلا الملائكة أيو أمر مديدان waxay ilaahay amarkiis diidaa waa ibliis iyo jinniga iyo bani aadamka weey ilaahay wuxuu yiri cinqaabtan cinqaabo waa daranta oo laga bixi karo waana la ghafuur rahiim hadana ilaahay waa ala dambiga dhaafo naxariis badan sifooyinka ilaahay u leeyahay ay labasba ka mid yihiin in ilaahay cinqaabtiisu daran tahay oo cinqaabta ilaahay uu cinqaabaa wixii amarkiisa diidaa inay mid daran tahay oo laga bixi karin inuu ilaahay uu iska cafiyo adoomadiisa una naxariistana ilaahay taasna wuu leeyahay oo sifaadkiisa waa ka mid marka waxa idin leeyahay hadaad muslim tihiin iyo hadaad bani aadam tihiin iyo hadaad Soomaali tihiin iyo intay maqlaysay naftaydaba waxa idin leeyahay ilaahay khalaga boqo oo cinqaabkiisa la iskama celin kare oo lama xamili kara laga boqo aayadii hore qaala tacaala قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون آيدي وحا في عنيا وحو مسينا أديك هكولا في عنا هكو عجب قليو شيء حن وفرحة بضانة معي كل ما نسي فاتقوا الله كل ما نسي يا أولي الألباب ذلك عقل قالوا إلهي إنك بقى لعلكم تفلحون هذا إله كبقدان والليبان إنسان ليبان تأدون إلى ليبان تآخر وحي كجرتا إلهي إن لغا بقو دل كان صومالي إلهي هلوغا بقو شعبك الصومالي إلهي هلوغا بقو دينة إسلامك إلهي هلوغا بقو قوف البو نفت هذا قبر قيامة إلهي هرس تاقيسي إلهي هاقوغا بق نار جهنم كان بعكرت إلهي هاقوغا بق دل كان qofka marka la tartamo labada qof isku soo harta marka la tartamo qofka dalka maslaxad isku jirto oo labadooda fiican oo diintii dalkii dadka xu qabanayo u daacasan doorta adad xillibaanatihiin haday idin gaftay 214 hadda ay gaftay 20 diilay cimri in ku gaarsiyo qofka diintii dalkii dadka dan ugu jirto oo maslaxadooda hayo ka shaqeynaya oo fiican labada qof isku soo hartay doorta